aanu inooga hadhin. marka shaqadeena ugu horreysay qaban jirnay waxay ahaan jirtay desktopkeena iman jirnay kadibna dee folder bayn ka samaysan jirnay. folderkeena tusaale ahaan oo kale waxaan ula baxay project baan ula baxay. marka maybe project-aygan koowaad tusaale ahaan oo kale waxaan ula baxay waa projects ayuu ii hayn doonaa waa magaca guud aan iska samaystay. projectskayga gudahooda haddayn tagno gudahooda waxaan samayn jirnay right click haddayn idhaahno wuxuu inoogu furayaa maxay terminal. marka opening terminal markay noo soo baxday ama command kan aynu helno ayaynu waxaynu ku qori doonaa command-skaynu u baahnay. marka kombiyuutarradeena Django way ku jirtaa waynu ognahay haddayna laakiin ku jirin waxaan odhan doonaa pip install waxaana loogu shubi doonaa kombiyuutarkayga maxay Django waa laynoogu shubaya. intaa steptaa markayn marno mar labaad waxaynu mari jirnay si aynu u hubino option-kan idhaahno maxay pip freeze. marka pip freeze haddaynu idhaahno waxay nooga soo bixi doonaa in kombiyuutarkeena ku jirto Django iyo in kale ayuu inoo sheegi jiray. marka halkan wuxuu inoo sheegay inay noogu jirto Django version-keedu yahay maxay 5 buu inoo sheegay. intan markaan ka gudubno mar kale waxaan odhan karaynaa waxaan u baahannahay Python waxaan odhan doonaa -m waxaan u baahannahay gaar ahaan Django start waxaad noo abuuri doontaa bay leenahay start waxaad noo abuuri doontaa maxay project-geenana tusaale ahaan haddaynu xasuusano waxaynu la baxnay harhab kadibna harhab haddii laynoo sameeyo waxaan odhan doonaa cd waxaadna geysaa maxay harhab kadibna halkaygii ugu dambeysay ama directory-gaygii ugu dambeeyay projectis ahaa hadda wuxuu noqday maxay harhab buu noqday. marka project-gayga waxaa la yidhaha maxay harhab baa la yidhaahdaa. intaa markay samayno command-keena inoogu xigaa waxa weeye haddaynu xasuusano waxaan odhan doonaa waxaan u baahannahay harhab markaan samayno waxaan odhan doonaa cd harhab baan soo galay kadibna waxaan odhan doonaa maxay migrate noo samee. migrate markaan samayno macnaheedu waxay ahayd faylasha meesha ku jira ayaad noo update garayn doontaa. waxaan odhan doonaa python gaar ahaan manage.py waxaan u baahannahay waxaad noo samayn doontaa maxay migrate baad noo samaynaysaa faylashaydaad noo update garaynaysaa. migrate marka laynoo sameeyo faylasheenii oo dhan update laynoogu sameeyo update-ka laynoo dhammaystiro mar kale waxaan odhan doonaa waxaad noo samaysaa hadda wax loo yaqaano create waxaad noo samayn doontaa maxay super user. create waxaad noo samayn doontaa maxay super user. super user-keena marka laynoo sameeyo magaca la bax baa laygu yidhi admin baan la baxay email-ka waan iska dhaafay password-ka 123 baan ka dhigtay mar kalena 123 baan ka dhigay. marka password-kaagu wuu jilicsan yahay waa tiro yaroo kooban miyaad ku qanacsan tahay way baynu odhan jirnay ama yes ayaynu odhan jirnay. intan hadday samayno kadibna meeshan aynu iska soo masaxno intan hadda waxaa laynoo sameeyey super user ayaa laynoo sameeyey. intaa waxay noogu xigi jirtay inaynu samaysano maxay fayl kale aynu nidhaahno maxay waxaad noo samayn doontaa maxay start waxaa laynoo samayn doonaa maxay app kadibna waxaan idhaha application-keena waxaa la yidhaha tusaale ahaan kale maxay events ayaa la yidhaahdaa. events-kayga gudihiisa markaan imaado waxaan odhan doonaa code-kaada igu furi doontaa code space dot baynu odhan jirnay kadibna wuxuu inoogu furi jiray Visual Studio Code-keena ayuu inoogu furi jiray. trust baan leeyahay waan ku kalsoonay folder-kan iyo folder-rada la midka ee soo socon doonaba. then kan sidaan iskaga qariyaa folder-kayga markaa haddaad soo weynaysto folder-keenu wuxuu ka kooban yahay labadan qaybood wuxuu ka kooban yahay qayb events la yidhaahdo iyo qayb la yidhaahdo maxay harhab la yidhaahdo. marka harhab waxaan idhi waa magaca project-gayga events-kuna waxa weeye maxay magaca application-keena ayay noo noqonayaan. intan step bay soo qaadnay hadda steps-keenaynu dhammaynay waa intan. waxaynu ka bilaaban doonaa code-keena qaybta models-ka kadibna waxaan odhan doonaa waxaad noo samaysaa class la yidhaahdo events baa la yidhaahdaa. marka events-keena shalay maadaamaynu soo qornay waxba waqti badan ku lumin maayo inaan midhmidh u qoro waa iska koobiyeysan doonaa in waqti badan dib iga galaan diidayaa markaa copy baynu odhanaynaa iska xasuusin maadaamay tahay. waxaan tegi doonaa qaybteena events kadibna waxaan tegi doonaa maxay models-ka. models-keena markaynu imaadno halkan waxaan ku koobiyeysan doonaa code-kaygan aan haysto ayaan odhan doonaa igu basti garee kadibna mushkiladda ugu weyn ee dhacday wataa copy iyo basti haddaynu isticmaalno maxaa dhacaya title-kii wuxuu la sinmay maxay line-kii horuu la sinmay. marka xalka quraadka jira dee waa in qofka haddii aad garanaysid waad soo wada durkin doontaa laakiin in intan oo line ay soo durkino inagoo qornaa ka dhow. class baynu ka samaysan doonaa class-keena waxaan odhan doonaa events-keena waxaan odhan jirnay models-ka markaan joogno wuxuu inoo noqon jiray waxa la yidhaha maxay model baynu odhan jirnay kadibna waxaan odhan jirnay tusaale ahaan dhacdadeenu waxay lahaan jirtay title ciwaan kadibna ciwaankeedu waxaan odhan jirnay models-ka markaan joogno wuxuu inoo noqon doonaa maxay
char field xarfu inoo noqon doonaa xarfiheenana maximum lengthkooda tusaale ahaan oo kale waxaan nidhi waxay noo noqon doonaa 255 xaraf title markaynu samaynay mar labaad waxaan odhan jirnay dhacdadeedu waxay leedahay sawir aanu ku garanno sawirkeena waxaan odhan jirnay modeliska markaan joogno wuxuu noo noqon doonaa maxay image field kadibna waxaan sheegi jirnay failkeena halkeebaa lagu upload garaynaya uploadtu markaan sheegno kadibna waxaan odhan doonaa sawirkayga waxaad noo dhigi doontaa tusaale ahaan oo kale folderkayga la yidhaahdo maxay images baad noo dhigaysaa sawirkeena waxaa laynoo dhigi doonaa folderkeena la yidhaahdo maxay images ayaa laynoo dhigayaa mar kale kadib waxaan odhan jirnay waxaad noo samaysaa descriptionkeenana tusaale ahaan wuxuu qeexi jiray sawirkeena ama xogteenu qeexi jiray ama eventigeena markaa modeliska waxaan odhan jirnay markaan joogno wuxuu noo noqon doonaa maxay char field xarfo isagana magas langas baan u samayn doonaa 255 baan ka dhigtay waan iska soo dhaafay intan markaan kasoo gudbo iyadana waxay noo jiri jirtay description markaan ka nimaadno waxaan odhan jirnay datekee bay dhacaysaa kadibna waxaan odhan jirnay modeliska markaan joogno waxay noqon doontaa date fieldi bay noqonaysaa intan markaynu ka nimaadno waxaanu odhan jirnay tusaale ahaan oo kale xilligee bay dhacaysaa saacaddee kadibna isagana waxaan odhan jirnay modeliskayga markaan joogno wuxuu noo noqon doonaa maxay time fieldi ayuu inoo noqon doonaa wuxuu inoo hayn doonaa timeka ama waqtiga intaa markaan soo garanay kadibna waxaan isla soo aragnay country wadankee baa lagu qabanaya tusaale ahaan kadibna waxaan nidhi isaguna modeliska markaan joogno wuxuu inoo noqon doonaa char field xarfu inoo noqon doonaa xarfuhuna waxay noqon doonaan ugu badnaan tusaale ahaan 255 ayay noo noqonayaan sample intaa markay soo samaynay kadibna waxaan odhan jirnay waddanka haddii lagu qabanayo halkee baa lagaga qabanaya magaaladee kadibna waxaan odhan doonaa modeliska markaan joogno isaguna wuxuu inoo noqon doonaa maxay xarfo ayuu inoo noqon doonaa magas langaskiisana waxaan ka dhiganay 255 xaraf maadaama intaas u badnayd kadibna waxaan nidhi intaa haddaanu kasoo gudubnay waxaan u baahannahay magaalada halkee baa lagaga qabanaya locationkeena kadibna locationkeena wuxuu noqon jiray modeliskeena markaan joogno waxaan odhan jirnay isaguna wuxuu noqon doonaa char field buu noqon doonaa xarfuu noqon doonaa kadibna waxaan odhan doonaa 255 xaraf oo kale ayaad noo hayn doontaa intaa haddayn ka nimaadno dhow waxaan odhan doonaa locationkii haddaad noo haysid hadda waxaad noogu dari doontaa wax loo yaqaano tusaale ahaan oo kale organizer yaa habaynaya xafladdan organizerka markay sheegno isaguna waxaan odhan doonaa modeliska markay joogno tusaale ahaan wuxuu inoo noqon doonaa isagu wuxuu inoo noqon jiray foreign keygan wuxuu ka iman jiray userka macnihii userkee ayaa samaynaya xogtan kadibna waxaan odhan jirnay userkayga isagana haddaynu tusaale ahaan oo kale samaynayno inaynu wax ka bedelno on delete aan samaynayno wuxuu la mid noqon doonaa modeliska wixii ku jiray aynu ku samayn doono maxay cascade ayuu noqon jiray intaa markaynu ka nimid kadibna waxaynu odhan jirnay then created baynu odhan jirnay at xilli maa la sameeyey dhacdadan kadibna waxaan odhan jirnay modeliska markaan joogno wuxuu inoo noqon doonaa maxay date iyo time fieldi kadibna isagana waxaan odhan jirnay taariikhda iyadu waxay la mid noqon doontaa taariikhdan hadda ku jirno auto now maxay noqonaysay markaan sameyno waxaan samayn jirnay maxay true intaa markaan kasoo gudubno waxaan odhan jirnay xogteena haddaynu wax ka bedelno oo updated aan samayno at iyadana waxaan odhan jirnay modeliska markaan joogno waxay noo noqon doontaa date iyo time fieldi laakiin iyadu auto now xilligana jooga noqon mayse arbitrary yama noqon doonto laakiin waxay noqon doontaa auto now kadibna auto nowdeena waxaan odhan doonaa waa true xarfiheena inta badan capital bayn ka wada dhigan jirnay si aynu ula soconno intan markaan samaysano inta badan errorku wuxuu inaga qabsan jiray maxay user markaa hadduu inaga qabto halka sare iman jirnay from waxaan odhan jirnay markaan joogno maxay django gaar ahaan maxay contrib gaar ahaan maxay authenticationka markaan joogno ama userska aan joogno waxaa naloo tegi doonaa modeliska marka naloo tagana waxaa lasoo import garayn doonaa maxay magaca la yidhaha maxay user ayaa naloo soo import garaynayaa intana waxaa ii ogoshahay in userradeenu isticmaali jirnay super userkan soo samaysanay halkan ayaan ku isticmaali karno ayaa laynoo tixgelinaya intaan markaan samayno functionkeenan waxaan odhan jirnay wuxuu soo celin doonaa sidiisaba string buu soo celin doonaa str laba underscore kadibna waxaan leenahay waxaad soo celin doontaa self waxa gudahaaga ku jira self markaan samayno kadibna waxaan odhan jirnay return waxaad soo celin doontaa waxaa noogu jira self markaan joogno gaar ahaan maxay titleka dhacdada self markaan joogno gaar ahaan waxaa laynoo soo celin doonaa titleka dhacdadeena
intan markay samayno then waynu kasii socon doonaa waxaan samaysanayaa iyadana model labaad bayn lahayn isagana waxaan odhan jirnay classkeena waxaa la yidhahdaa event registration baa la yidhahdaa event registration bayn leenahay isagana waxaan odhan doonaa modeliska markaan joogno tablekeena labaad wuxuu inoo noqon doonaa maxay model kadibna isagu wuxuu leeyahay marka ugu horeysa waxa la yidhaahdo eventgeennuna waxay la mid noqon doontaa dhacdadeena labaad kan koowaad bayn dhamaynay modelkeena koowaad kan labaad waxaan odhan doonaa waxaan u baahannahay event registration baan nidhi kadibna waxaan nidhi modelskeena markuu joogo wuxuu noqon doonaa model kadibna eventgaygu wuxuu la mid noqon doonaa dhacdooyinkii hore ii diiwaan gashnaa markaa foryankii wuxuu soo xigan doonaa macnihii wuxuu soo heli doonaa dhacdooyinkii hore meesha inoogu jiray la yidhaahdo maxay events ama tablekeena sare dhacdooyinka inoogu jira marka waxaan odhan doonaa modelskeena markaan joogno wuxuu noo noqon doonaa maxay foryankii ayuu inoo noqonayaa foryankigeenan markuu inoo noqdo waxaan odhan doonaa waxaan wax ka soo xiganaynaa ama xogta waxaan kasoo akhrisan doonaa tableka naga sarreeya ama modelka naga sarreeya la yidhaha maxay events kadibna waxaan odhan jirnay on delete haddii la masaxayo wuxuu la mid noqon doonaa modeliska gaar ahaan maxay waxaa la samayn doonaa maxay cascade ayaan samaynaa intan markay samayno columnka labaad uu ka koobanya waxa weeye attendee qofka ka qayb gelaya kadibna waxaan odhan doonaa qofka inooga qayb gelayaana wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan modelskeena markaan joogno isaguna wuxuu inoo noqon doonaa foryankii wuxuu soo xigan doonaa maxay userkan isticmaalaya ee meesha soo galay marka user buu la mid noqon doonaa ama qofka username kale kadibna waxaan leenahay on delete markaynu masaxayno wuxuu la mid noqon doonaa modeliska gaar ahaan maxay waxaan odhan jirnay cascade intan haddayn samayno optionkiisa saddexaad ee inoogu jiraa waxa weeye qofkan xilli maa la isdiiwaangeliyey kadibna waxaan odhan doonaa registered at wuxuu isdiiwaangeliyey maxay date and time field ayaynu ka dhigan doonaa khaanadan xogtaynu gelin doonaa marka iyadana waxaan odhan doonaa registered xilligu isdiiwaangeliyey waxaan odhan doonaa iyaduna modeliska markaan joogno waxay la mid noqon doontaa date iyo time field labadii wada socda kadibna waxaan odhan doonaa outernow ad wuxuu noqon doonaa true mid no true python labada xaraf ee qudhaateen waa weynayn jirnay wuxuu ahaa true iyo false marka tiidan waan weynayn doonaa hadday false tahayna false bayn ka dhigan doonaa kadibna waxaan odhan jirnay functionka iyagana wuxuu samayn doonaa wuxuu soo celin doonaa sidiisaba stringgan uu soo celinayaana wuxuu noqonayaa maxay self waxaa noogu jira kadibna waxaan nidhi waxaad noo samayn doontaa return baad noo samaynaysaa markaa return markuu inoo sameeyo marka hore hal fariin buu kan hore soo celinayay laakiin maadaamaaynu u baahannahay xogtan uu soo celinayaa inay ka koobnaato fariintii oo ah qofku inuu isdiiwaangeliyey iyo laba shay oo kala duwan oo noqonaya qofka eventiga isdiiwaangeliyey iyo eventi taytalka waxaan odhan doonaa waxay la mid tahay f baynu isticmaali doonaa kadibna curly braces ayaynu isticmaalnaa intan markaan sheegno waxaan sheegi doonaa waxay la mid tahay self waxaa ku jira maxay attendee qofkii isxaadiriyey ama ka qayb gelayay gaar ahaan maxay username-keesa marka labaadna waxay la mid noqon doontaa eventigeena taytalkeeda ayay la mid noqon doontaa marka waxaan odhan doonaa self waxaan u baahannahay gaar ahaan maxay qofkan isdiiwaangeliyey attendee waxaan u baahannahay maxay username-keesa marka username automatic isagaa usoo akhriyaya oo wuxuu kasoo akhriyayaa username-yadii inoo samaysnaa kadibna waxaan odhan karnaa tusaale ahaan oo kale registered wuu isdiiwaangeliyey registered wuxuu isdiiwaangeliyey tusaale ahaan oo kale for dhacdadan soo socotee la yidhaahdo selfka waxay ku jiri doontaa gaar ahaan maxay eventiga gaar ahaan waxay ku jiri doontaa maxay taytalka dhacdaday ku jirtaa intaan markay samaysano safe bayn odhan doonaa labadeennii model bayn dhamaystirnay labadeena model markayn dhamaystirno koodhka inoogu xigaa waxa weeye waxaynu gudbi doonaa maxay admin.py kadibna admin.py-ga wax badan ba isagu igama qaatee gudihiisaan iman doonaa kadibna waxaan odhan doonaa horta marka hore waxaan soo samaystay laba model labadayda model from waxaa laga soo import garayn doonaa space gaar ahaan qaybta la yidhaha maxay modeliska waxaa laysoo jiidi doonaa failka la yidhaahdo ama modelka la yidhaha events iyo ka kale la yidhaha maxay events registration kadibna halkan waxaynu ku diri jirnay admin siteka wuxuu inoo diiwaangelin doonaa wuxuu register inoogu samayn doonaa waxaa inoogu jira maxay eventska marka labaadna kanun baan copy ka samaysan halkan un bay noqon doonta maxay event registration
intan haddayn samaysano safe nidhaahno safe bayn intan nidhi intan safe bayn nidhi intan markayn safe garaysano intan dhamaysano qofku wuxuu tegi jiray bayn nidhi maxay qaybtiisa settingska kadibna wuxuu tegi doonaa halkay ku qoran tahay maxay installed apps kadibna halkan hoose waxaan ku dari doonaa maxay magaca applicationkeena waxaan tegi doonaa settingska failkeena settingsku waxay noogu jireen qaybta projectka kadibna waxaan odhan doonaa settings kadibna waxaan odhan doonaa halkan waxaad noogu dari doontaa installed apps halkan ay noogu qoran tahay waxaad noogu dartaa application la yidhaha maxay events safe haddaynu idhaahno intan shaqadii noogu xigtaa waxay ahayd waxaynu ku noqon doonaa terminalkeena kadibna waxaynu ku qori doonaa shaqooyinkan haddii aanu kuugu jirin bilow waxaad odhan doontaa bib install bilow kadibna waxaad odhan doontaa waxa kuugu xigaya maxay migrate kadibna waxay noogu xigi doonaa make migration marka bilow maadaama ha extension lasoo install garaynayo internet connection ayaynu u baahanay intaan qorayno kadibna waxay leenahay gudaha codekeena aynu kusoo noqonay waxaad noo samayn doontaa python wuxuu noo samayn doonaa manage.py aniga waxay samayn doontaa migrate baan ka bilaabay migrate waa in fileskaygii la hubiyo hadday wax qaldan yihiin marka wax errors ma jiraan waxay nagu waxaad samayn kartaa make migrations baad samayn kartaa waxaad samayn kartaa faylation wax laga bedelay ayaa lagu save garayn kartaa marka waxaan qortay make migrations ayaan nidhi kadibna waxa laynoo sameeyey model la yidhaahdo events iyo model la yidhaahdo maxay events registration intaa markay nimaadno mar labaad waxaan ku celin doonaa baynu nidhi maxay migrate ayaynu ku celin doonaa migrate-kan marka laynoo dhammaystiro clear haddaan iska idhaahdo meesha iska masaxo marka xiga waxaan odhan doonaa waxaad ii samaynaysaa maxay run serverka intuu sinayna serverkeena think server kale halkan iga kacsan marka hadduu server hore ii kacsan yahay outputkii hore unbuu soo saari doonaa kii hore waan kasalayaa terminalkaygii hore isticmaaliyay hadda haddaan dib u eego markaa wakaa wuxuu soo saaray installationkeeni inuu success yahay kadibna waxaan odhan doonaa waxaad nageysaa qaybta la idhaha maxay adminka ayaad nageyn doontaa adminkeena markay nimaadno usernamekan isticmaalaya waa admin passwordkiisuna waa 123 kadibna login bayn leenahay haddaynu markaa eegno adminkeena iyo userkiisa aan soo galno waxaan haysanaa laba shay waxaan haysanaa table la yidhaahdo events iyo table la yidhaha maxay events registration haddaynu dhacdo diiwaangelinayno ar baynu odhan doonaa kadibna halkan waxaan odhan doonaa tusaale ahaan oo kale dhacdadan aan magac ula baxay xilligan ay dhacaysaa tusaale ahaan oo kale waxay dhici doontaa 25 kay dhici doontaa kadibna sawir baanu soo dooray tusaale ahaan oo kale cidda organize garaynaysaa waa admin kadibna waxaad samayn doontaa safe hadda waxa lay sameeyey maxay hal dhacdo mar labaad waxaan idhi tusaale ahaan oo kale tii oo kale soo celiyey laakiin waxaan ka bedelay python baan halkaas sare ka dhigay sawirkii labaadna waan usoo dooray labadaa dhacdaan hadda haysta tan waxay dhici doontaa bay leenahay 25 ka dhici baysa 27 kay dhacaysaa xilliga dhacaysaana duhur buu noqon doonaa noon bay noqon doontaa halka ka dhacaysaana waa hargeysa iyo harhab bay nidhi waxaan organize garaynaya tusaale ahaan admin kadibna waxaad noo samayn doontaa safe bay nidhi hadda waxaan haysanaa laba dhacdo mid waxaynu haysanaa maxay python coding iyo mid ay nidhi maxay somali coding marka hadda labadeenan dhacdo oo quraata ayaynu haysanaa laakiin ma jirto weli cid isa soo diiwaangelisay ee hadhowii dadku isa soo diiwaangelin doonaan aynu doonaynaa inaynu eegno qaybkay ugu soo biirayaan intaa haddeen ka nimaadno waxaynu ku socon doonaa codkeena laris intaa markay samayno waxaan samaysan doonaa shaqadii inoogu xigtaa waxa weeye waxaynu ka dhex samaysan doonaa folderkeena ama applicationkeena la yidhaahdo eventska waxaanu ka samaysan doonaa folder ay nidhi maxay waxaa la yidhaahdaa templateska waxaan ka samaysan doonaa folder la yidhaahdo maxay base ayaynu ka dhex samaysan doonaa marka intan haddaynu qabano sir kawa iskaga tegi doonaa eventskayn ku dhex noqon doonaa kadibna waxaan odhan doonaa waxaad noo samaysaa folderkayga waxaad noogu bixisaa templates ayaad noogu bixinaysaa templateskaena gudihiisana waxaynu ka dhex samaysan doonaa bayn nidhi file ay nidhi maxay base.html ayay nidhi basekeena codeka yar baynu ku qoran jirnay html-ka kadibna halka sarena waxaynu u baahnaan jirnay inaynu bootstrap linkii keensano kadibna waxaan odhan doonaa naaf baan u baahanay naafka tusaale ahaan waxaan iska qaadan doonaa kan naaf bar baseka kadibna halkan waxaan odhan doonaa tusaale ahaan pagekayga waxaad u bixin doontaa pagekayga waxaad igu bixisaa tusaale ahaan harhab
shayadan uu ka kooban yahay home wuxuu ka kooban yahay home markaa home waa iska tuuri karaa haddaanan u baahnayn haddii kale waa iska daysan karaa kadibna waxaan idhi halkana userka magaciisa hadhow inoo soo saari doontaa oo waxayna odhan doontaa welcome user bayna odhan doontaa waxayna odhan doontaa welcome user kadibna userka magaciisa inoo sheegi doontaa halkan waxaan idhi waxaan ka samayn karnaa login halkan kalena waxaan idhi waxaynu ka samayn karnaa hadhow haddaynu u baahno maxay logout ayaynu ka samayn karnaa ama gudahay soo geli karnaa ama banaanka aynu bixi karnaa intan markay samaysanay kadibna waxaan idhi waxaynu u baahanay tusaale ahaan oo kale bootstrap yar baynu u baahanay bootstrap si aynu soo helno qaybtaas ruu ninkaas iga qabsaday markaa okay bootstrap cdm baynu u baahanay markaa let me meeshii iga haystaa gudgeeda waxaan u baahanay bootstrap weliba bootstrap 5 baynu u baahannahay cdn-keeda bootstrap 5 baynu nidhi waxaan u baahanay cdn-keeda inaan helo kadibna cdn-kay soo qaadan jirnay kan ugu horeeya copy baynu odhan doonaa kadibna waxaan samayn doonaa codekeenna waxaynu ku darsan doonaa halkan ugu sarreysa ayaynu ku darsanaynaa screenkii oo dhan ma wada hayo halkan sare aynu iman doonaa ay ku qoran tahay tusaale ahaan title kadibna inta waxaan samayn doonaa halkan aynu ku baasti garaysanaa control v bay leenahay intaasay samayn jirnay kadibna waxaan soo qaadan jirnay qaybteeda kale javascriptiga iyadana waxaan odhan doonaa copy noo samee kadibna iyadana waxaan dhigan doonaa maxay halkan hoose ay ku qoran tahay body aynu iman doonaa kadibna halkaasay ku baasti garaysan jirnay sef haddaynu intan idhaahno kadibna aynu eegno projectgeena screenka qaybta hore intaasaynu ku joojin